بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بريبش واشان يطبن ومالنتي عبد الرشيد علي الشرمار كل الدلي حقين لقد دلي يا دلي يا كدم بيي إن عيدك إن قبصده وكوبيا لبعض سنادود إن حيستان والتاريخ ذا سبب تهدي لها الحقيقة الله نحرستو عبد الرشيد علي الشرمار كيوحي أمد المسلمين وتاريخ شلبي كوبيك ندبالنتي للدلي لا سعالود بلغو دلي نين علي الصليبان او عسكري بادلي شرقولك قولب السيبي ودكتا وليبا سياسيين تم محمود صليبان بان وحبادا كور صدي ما عدين كريو وحي أنا أهين عدين الحقيقة ما شيكتو من لبعض الله ونحرستو ما هذا عي كدب وحا إن قبصتي الدولة ميليترية عيدا باي إن قبصتي waxaa hogaaminayay marxuum maxamed siyaad bare allah u naxariisto mudday ka talinaysay dalka wanaag badan way lahayd dhibna way lahayd marka maanta la qiimeeyo دور iyo 30 sanadood kadib oo la yiraahdo maxaynu ku noolahay sideen nahay maxaynu soo maray amal rajo maleenahay maanta ويرتاح ولكن لا تقنطوا من رحمة الله anigu waxaan ka mid ahay dadkii ugu faraha badnaa dhinaca xabsiga ufo nimanka la yiraahdo waa layla xidhay kama aanan mid ahayn laakiin waan diidanaa xadhigooda nimankii ceerigaaba laga xidhay ee uu ku jiro boos miro maxamed nuux iyo ismaaciil xaaji nuur inta hadda aan garanayo ee nool warkadaaya baan iri ninka ceerigaaba ku dhashay iyo ninka wajaale ku dhashay isma yaqaaniin waa la xidhay too much hadalkaygu wuu ahaa aragtidaana iga hadalsiinaysay sida ay tahay maceel qabo kolka aan arko maanta sida ay tahay Soomaali iyo waxa ay ku nooshahay maceel qabo wanaag badan bay lahayd dawlad laga baqaabay ahayd dawlad karaamad leh ahayd dawlad xoog badan bay ahayd dawlad waxigsanaysa bay ahayd dhibaatooyinka ina soo gaaray NFD baa ka mid ahayd Soomaali galbeed xoreynteedii baa ka mid ahayd baadi goob ee Soomaalidaas xoroodo ka mid bay ahayd dalku wuu dhismay
gobolladu waa dhismeen habar waliba af soomaaligay maanta qortaa wanaag badanna waa lahayd alxaqiiqa qodobkaa intaas ayaan ku dhaafaya saddexaad allah u naxariisto cabdirashiid allah u naxariisto maxamed siyaad allah u naxariisto maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariisto cabdulaahi yuusuf allah u naxariisto aadan cabdalla cismaan الله ونحرسته وحي صومالها إدنتي اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إله الدعاء دايق قاسي قضب كالا انت ساكو دافئية كسمايو هدي علي مسار لو تجي iyo haddii xeelado siyaasadeed loo tegay enough is enough in laga soo baxo oo xabaaliya ninkeedii dee laysu daayo way ii muuqataa balse ilaa berri baan dhowraya xalqadahayga hore waxaa ku jiray waagii hore ninka cadhooda Etoobiyuu tegi jiray waana ka soo samaysmeen jabhadihii SNM SSDF SBM UNC albaabkaas wuu soo xirmay hadda ninkii cadhaysan ee mucaaradi waynu gudaha xarun ka sameeyaa ma suurtoobaysaa xaruntu ma aqaan mise suurtoobi maysa waan hubaa tash ka weyn caleema saar in loo adeegsmaayo aqligayga inaan lagu heshiinayn tashiga garashadayda isiinaysa أنا ما دخلت السياسة أمس واجرتي كولا كوين oo hore loo qabtay oo ku saabsanaa farmaajana aridno prime minister kana nin ha qaato nin ka mid ah nimanka baa yiri doorashaan anigu aqaan doorasho election nomination iyo waxa ayaan sii qaybsano iyaan ma aqaan arrintii way daba socotay maalmaha soo socda iyo waqtiga ka shifi doona laakiin cali ahaan inay caleemasaar ka weynayd oo ay tashi ahayd siyaasadeed qof aan weydiinaya ma jirto khayr allah ka dhigo qodobkaan intaasaan ku dhaafaya axmed madoobe turubka baandhay cid ku aqoonsan ma leh dowladda Soomaaliyeed ee dalka xukunta ee legitimate-ka ay kuma aqoonsana beesha caalamkuna kuma aqoonsana macna uu sameynaysaana ma jirto aadam barre ducaala ii yimiyo ku mahmaahay naagtii aan unsan aqooni meel walba way iska gubtaa dhaqan iyo diin midna ma ahayn sharaf iyo kalaamad midna ma ahayn
waxayna ahayd immediately adiga Axmed Madoobe ah inaad ka raali geliso ummadda hadalka maxaa yeelay lafba lafta xigtaa lagu kabaa laakiin waad qoslaysay taariikhdaad ku qoran tahay qodobkaana intaasaan ku dhaafaya Puntland waxa ka socda ee ka dhacaya hadhow baa la oran doonaa Cali Daacuun baa ka dambeeyey hadhow baa la oran doonaa dowladdaa ka dambeysay war kama dambeyn dadku way kaceen waxbaa kiciyey wixii ay Siciidani u idmadeen wax aan ahayn ayuu Siciid la yimi Siciid bay u taallaa siduu dabkaa isaga baktiinayo alxaqiiqa ninkii runta igu diidayo dacarta soo leef wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu